إلهي بانو قم هدعلنا شيء لوي يمد وفيها رغي كان تلفت حول موجود دميي سجولة يستقرض تاس مهد ما أنت إلهي بأسكله أنت كذب وعرب هالكان أنا وتعزينه dadkii Soomaaliyeed ee waxyeeladu ka soo gaartay dhacdadii 19 February mansab kasta iyo magac kasta ay leeyihiin intii ku dhimatay Allah naxariisto intii ku dhaawacantana caafimaad Allah siiyo runtii waxaan rabaa in la uga mahad celiyo taasi kadib intii ka qayb qaadatay soo abaabushay ka soo shaqaysay gacan ka geysatay inaad ku maadsantihiin annagoo runtii qayb weyn ka ahayn safarkeennagana ay qayb ka ahayd inaan hawlahan xal u helno ka socday maalmahan muddadan dambe magaalada Muqdisho ilaahay subxaanahu wa ta'aalana waa annaga iyo intii ka qayb gashay waa nagu guuleeyay dhammaan mas'uuliyiinta ka qayb qaadatay tanasushay isaga soo dhawaatay waxaan leenahay waa ku maadsantihiin intaas kadib dhacdadaas waxaa laga gaaray sabgarad sidii hore lagu aqriyay statementiga iyo sidoo kale mudaharaadkii ay ku baaqeen ama ay cilaamiyeen midowga murashaxiinta oo isagana meel la isla dhigay waqtiga uu dhacayo xilli ku habboon iyo qaab ku habboon inay ka soo wada shaqeeyaan xukuumadda iyo dhinaca midowga murashaxiinta waxaa xusid mudan in aad iyo aad la isu soo dhawaaday wax badan la rogrogay la gorfeeyay jawi deganna lagu wada hadlay hadda kadibna aan ku kalsoonahay inay sidaa ku socon doonto hawsha iyadoo sidii la xusayba qodobadii laga wada hadlay ay ka mid ahaayeen arrimaha doorashooyinka iyo sidii dalka doorasho xor iyo xalaal uga dhici lahaa loo wada geli lahaa ayadana runtii jawigaasi wuxuu ahaa jawi hiddiilo leh ummadda Soomaaliyeedna u leh runtii aragti cusub iyo maalmahan dambe arrimaha socday rajo ka daba marinaysa waxaan ugu baaqaynaa cid walba ama walaal kasta oo ka maqan arrimahan in wadanka doorashooyinka ka dhacaan laga baxo waqtiga isbedelku si u dhaco sidii loogu talagalay inay ka soo qayb galaan waxaan cid walba ugu baaqaynaa in dhinaca wanaagga gacan laga geysto dhinaca isumaadka iyo heshiiska gacan laga geysto aanay cidna ka qayb qaadan wax sii fogeynaya ama wax sii kala durjinaya waxaa runtii xusid mudan qof kasta oo mas-uula ama dadkeena mas-uuliyiinta ah in laka rabo inaan mar walba ku dhaqaaqno ama aan ka shaqeyno isu soo dhawaanshaha iyo in doorasho dalka ka dhacdo sidii loogu talagalay inaan ka shaqeyno aanan marna ama deegaan ama dadka Soomaaliyeed mas-uuliyiintu ayna ku matalin wax keeni kara kala fogaansho taa cid walba waxaan leenahay arrintaas laga digtoonaado hana la isu yimaado doorashadii iyo arrimaheediina hore aan annagoo heshiis ah oo walaal ah oo doorashadu tahay xalaal aan hala wada galo arrintaas waxaan dareynaa baaqaas waxaan leenahay jawigan iyo hadalkan caaw halkan ka dhacay runtii wuxuu yahay mid farxad leh mid bishaaro leh mid rajo fiican gelinaya dadka Soomaaliyeed inaan hore u sii wadno hore loo sii wado ayaana rajo weyn ka qabnaa kuna kalsoonahay waxaana leenahay warkii iyo xaaladii aan la soconayn waqtiga doorashada meesha laga daayo yaan meesha la soo gelinin cid walba aan ugu baaqaynaa waan mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad ayuu mahadsanyahay madaxweyne Axmed Qoor waxaan haddana jeclahay in halkan ku soo dhaweeyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta murashaxiinta ee u tartamaya Soomaaliya waxaan soo dhaweeyo Sheekh Cali oo musharaxna الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين
عدالة وحقوق أصل عار وزير دبها وسوق أصلي راح تاسير أسلامتين وزارها مدحوين الدولة لبدا مدحوين هراء midowga murashaxiinta xildhibaanada labada aqal wasiirada martisaafka halka ku sugan waa salaamintii runtii aad iyo aad u faraxsan caawa tiimkeyguna sidoo kale waa faraxsan yahay waxaan u mahad celinaa runtii dadkii dadaalka dheer u galay arrintan oo ugu horeeyay wasaaruhu sidoo kale saaxiibaday iyo ragga la soo shaqeeyay waa runtii aad u faraxsan caawa intaas kadib waxaan rabaa waxaa laga yaabaa mararka qaar runtii intii dadaalku socday iyo ka horba hadallo badan aan dareemay magaalada ka socday horta waxaan rabaa idin sheego dadkan oo midowga murashaxiintu waa madaxweynayaashii hore dalka waa ra'iisul wasaarayaashii hore dalka waa wasiiradii waa xildhibaanadii waa dadkii 20 sano la soo socday dalkan ka shaqeynayay waa dadkii dalkan nabad u horseeday waa dadkii dalkan dowladda ka jira badankooda asaasay waa dadkii dalkan naftooda u soo horay ma ahayn dad oo waxyaabaha qaar lagu tilmaamay ka shaqeynaya waxaan ahayn dad nabad raadinaya laakiin mar walba anaga goolkeena wuxuu ahaa in la gaaro doorasho oo xor iyo xalaal ah marka waxaan dhihi karaa caawa dadaalka la muujiyay waa bilowga arrintaas waana ka mahad celinaynaa ra'iisul wasaaraha tiimkiisana aad iyo aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xildhibaan wasiirkeygii hore saaxiibka xildhibaan mustaf wasiirkana hadda waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo murashax madaxweyne cabdiraxmaan cabdishakuur warsame بسم الله الرحمن الرحيم مدن رئيس الوزراء مدن ريال يقرأ على هذا قفكي عن برتقال سقط ما برتقال سكون في عينيه قفك استوى عنكم السلام محمد حسين رابلة وزاري وحير مقعي كل شيء مسؤوليتك كل يوم سلامتين qofkii aan soo dhaafan ay garaado aad iyo aad ayaa runtii uga mahad celinayaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug iyo gudoomiyaha gobolka oo si dhiiranaan leh runtii dood mira dhalan la furay maanta ka bixiyay cudurdaar wixii dhacay 19 Febraayo kana garaabay islaana meel dhignay arrimo badan oo taagtaag ah ama mugdiya oo dhexdeena ku jiray haddana aan ku heshiin in horay loo dhaqaaqo oo loo socdo runtii 19 Febraayo sax waaye dhacdo xanuun badan ay ahayd oo shacabka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadka gobolka Banaadir ku xanuun badan waxaase ka dhashay waxyaalo ka ratimay oo badanaa jiro oo kulamada dambe uga wada hadli doono wax walba dhacdo kastaana waxay soo saartaa hunbay banaanka soo dhigtaa marka muhiimadda ay leedahay arrinta nabadgelyada doorashooyinka ama electoral security wax la yiraahdo ayay banaanka soo dhigtay iyo xorriyadda siyaasadeed intaba midna hadda waa bilownay oo waatan mudaharaadkii iyo qaabka u dhici lahaa aan ka wada shaqaynayno wasiirka amniga saaxiibka Xundubey waxaan rajaynayaa inuu nagala shaqeyn doono arrintaas maadaama asaga hadda guddiga loo xisaaray uu kamid yahay waxaan aad iyo aad runtii aan dad badan oo u dhegtaagay shirkan intii aan soo gelin saakay midowga musharaxiinta waxay shir lahaayeen qolo la yiraahdo C6 plus oo beesha caalamka kamid ah shirkan oo bayna weydiinayeen kulankan asaga ah Soomaalida daafada dunida joogtana asaga oo bayna weydiinaysay marka annagana waxaan ku mitnay runtii oo dhinaca kale aan uga mahad celinaynaa oo dowlad goboleedyada iyo xukuumadda ra'iisul wasaaraha uu hogaaminayo in aan isku raacnay markii aan soo fadhiisanaba inaan ka mid dhalino shirka runtii waana ka mid dhalinay qof kastana kaalintii ay ka qaadatay ama doorkeedii waa uga mahad celinaynaa waxaan rajaynayaa wixii maanta ka dambeeya in hore aan u soconno ra'iisul wasaarahana maadaama annaga midowga musharaxiinta haddaan nahay xukuumadda aan ogolnahay
aan isku raacsanahay mandatekeeda xilgaarsiinta ayada inay leedahay inuu nagu horkaco howlaha inta dhiman aan isla wada dhamaystirno si dalkan ay uga dhacdo doorasho nabada la isku raacsan yahay laga raali yahay xilka iyo meertada siyaasadda Soomaaliyana sideedii aan ku soo celino ay ahaa jirtay oo ahayd inay 4 sano si nabad ay ku dhacdo marka waxaan u mahadcelinayaa intii dadaalka qayb qaadatay waana mahadsantihiin wasalaam aad iyo aad ayuu mahadsan yahay mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxaan runtii haddana rabaa inaan soo dhaweeyo oo aan kelimad siiyo madaxweyne cabdikariim xuseen guuleed بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رئيس الوزراء madaxweynayaashii hore guddoomiyaha gobolka banaadir labada madaxweyne ee hirshabeelle iyo galmudug xildhibaanada sanatarada iyo dhammaan murashaxiinta saaxiibada iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale dhammaantiin waa idin salaamka bacdi waxaan hambalyanayaa oo bogaadinayaa heshiiskii afgaradka maanta halkan lagu gaaray kaasoo ku yimid dadaal dheer iyo wada hadal dheer iyo wada xaajood dheer oo muddo dhowr cisho ah soo socday hormuud u ahaayeen madaxweyne hirshabeelle iyo galmudug iyo runtii mas-uuliyiin kale oo kala duwan dhacdadii dhacday 19 Febraayo run ahaantii waxay ahayd barmadow oo magaalada muqdisho iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeedba ku taala cabsi badan iyo walwal badan beertay inuu dalkani hanaankiisa dimuqraadiyadeed iyo qaabkii qori isku dhiibka ahaa iyo nabadda ahayd oo ka weecdo dhammaan cid kasta way ku mahadsan tahay dadaalka ay ka geysaday sida arrinta ayada ah aan directionka qaldan aan loo aadin ee loo aado dhinac nabadeed dhinac dimuqraadiyadeed iyo dhinac doorashooyin lagu qanacsan yahay loo aado waxaan rajaynayaa wada hadalka maanta meeshan ka dhacay oo runtii wada hadal aad iyo aad saraaxo iyo run isku sheeg tiro badan uu ku jiray inuu horsoodi doono dalku inay doorasho nadiif ah ay ka dhacdo doorasho xaq iyo xalaal inay ka dhacdo doorasho isku dhulkii dalkani uu ku soo maalay muddadii la soo dhaafay inay ka dhacdo inuu horsoodi doono insha Allah taala meeshaan waxaa ka dhacay runtii wada hadallo aad iyo aad mug weyn wax badan oo badanna looga wada hadlo loogana wada xaajooday oo ay ka mid tahay dhacdadii 19 Febraayo doorashooyinka soo socda iyo sidii loo taabagelin lahaa waxaanan ku ballanay in wada hadalka halkaa laga sii wado si dalka doorashadiisa iyo hanaankiisa doorasho ay u noqoto mid heshiis ah ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa aad baan ugu mahadcelinaynaa dadaalka iyo fahamka iyo tanaasulka iyo wanaagga badan oo ay muujiyeen wada hadallada iyo waxa socday sidaas si la mid ah midowga murashaxiinta oo run ahaantii aad iyo aad niyo wanaagsan la soo galay hoolkan la soo galay ayagana dhankooda tanaasul aad iyo aad u tiro badan ayay muujiyeen waxaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan baan leenahay nabad wax dhiba iyo wax colaad iyo wax mushkilad ma jiraan guriyihiina iyo hooyigiina nabad ku seexda insha Allah taala wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh aad iyo aad ayuu mahadsan yahay madaxweynihii hore galmudug ahna musharax madaxweyne mudane cabdikariim xuseen guuleed waxaan haddana jeclahay inaan soo dhaweeyo madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wixii maanta meesha ka dhacay iyo wanaagii iyo wada hadalkii horay ayaa madaxdii iga horeysana faallootay uga warantay
howl aad iyo aad u wanaagsan ayaa maanta meeshaan ka qabsoontay howl bilow ah ayay ahayd laakiin howl bilow oo uma ekayn runtii howl uu meel fiican soo gaartay ayay meel fiican ayayna soo gaartay inaha la sheegayna waa dhiman yihiin oo waa la sii wadi doonaa waa la sii dhammaystiri doonaa haddii aan la yidhaahdo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane maxamed xuseen rooble oo runtii hogaamin iyo dulqaad iyo ka muujiyey maanta iyo dabacsanaan badan wada hadalladeennii iyadoo oo duruufo badan ay dalkaani meel walba ka xeeran yihiin haddana in la wada hadlo oo la wada fariisto oo laisu soo dhowaado way fiican tahay sida communicate ka muuqatayna waxyaabo badanna waa laysku afgartay waxyaabo badanna waa laga sii wada hadli doonaa hadafka ugu dambeeya oo la wada hiigsanayana wuxuu yahay dalkaani doorasho inay ka dhacdo waqtiga ugu dhow ee suurtagalka ay ka dhacdo mid maxaanku idhahda raalli lagu wada yahay oo lagu wada qanacsan yahay inay ahaato mid u horseeda dalkan deganaanshiyo siyaasadeed iyo nabad iyo karaamo inay noqoto haddii alle iyo sharciyad xoog leh oo ay ka dambayso ka dhalato dowlad leh sharciyad xoog leh oo maxaanku idhahda dadka soomaaliyeedna ay ku kalsoon yihiin caalamkuna uu ku kalsoon yahay haddii alla yiraa waxaan aad iyo aad u aaminsanahay in laga miro dhali karo arrintaas la keeni karo haddii qof walba uu iska xil saaro uu ka adkaado hadalladiisa iyo caatifadaha iyo waxyaabaha waxaa laga hadlayo mustaqbalka ummad dhan waaye laguma go-aamin karo caatifad iyo qof maalin xanaaqay iyo qof rabitaankiis iyo qofaf rabitaankood iyo muxuu ahay laguma go-aamin karo waxaan rajaynaynaa bisaylkaas siyaasadeed ee maanta halkan ka dhacay inuu sii muuqdo sidoo kale waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa mabda'iyan in laysla qaatay qof kasta oo soomaali ah oo wax tirsanaya wax qaba ra'yi qaba in la dhagaysto lala fariisto laga qanciyo waxa uu qabo ama waxa uu la rabo in la dhaqangeliyo lagu qanciyo ee markaas aanu ku qanacsanayn laakiin ma jirto haddii aan la yidhaahdo maxaanku idhahday isjuubid ama isqasbid ama xoog iyo maxaanku idhahda colaad wax ku raadin intaba ma jirto dalkaani waa ka yimiday waayihii colaadda iyo maxaanku idhahday xanafta waayihii walaalnimada isqadarinta isdexgelinta isu nuglaanshaha ayaa lagu jiraa waan kusoo caanamaalnay horay haddana waa kusii caanamaali doonaa haddii aan la yidhaahdo waxaa mar walba noo qoran dastuurka aan leenahay iyo shuruucda dalka ay leedahay wixii markaa aan aada u caddayn ama ka maqan dastuurkana wada hadal iyo wada xaajood iyo isqancin iyo wada ogol in lagu jiheeyo ayaa iyadana mabda muxuu ahay rasmi ah laislana wada ogol yahay haddii aan la yidhaahdo iyadoo la ilaalinayo dastuurka iyo shuruucda dalka ka jirta iyadoo la ilaalinayo dhammaan wixii xuquuq ah oo ay shuruucdaas iyo dastuurkaba bixinayaan haddana duruufaha jiraahay mar walba tixgelintooda ayay leeyihiin waana la tixgelin doonaa haddii aan la yidhaahdo mar kale waxaan u hambalyaynayaa dhammaan madaxdii mas-uuliyiintii maanta halkan muddada dheer saacadaha dheer wada fadhiyey oo wada hadal ku jiray waxaan dadka soomaaliyeed u sheegayaa farxad iyo wanaag caawa ku seexdaano haddii aan la yidhaha inta dhimanna waxaan rajaynaynaa inay sidoo kale kusoo dhammaystiranto oo maalmo badan oo qurux badan ay noo soo socdaan haddii aan la yidhaha ilaahay idankiis mar kale hambalyaan leeyahay dadka soomaaliya meel kastoo joogaan aad iyo aad ayaa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan haddana jeclahay inaan soo dhoweeyo madaxweynihii hore ahna guddoomiyaha midowda murashaxiinta mudane shariif sheekh axmed بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد رئيس وزراء محمد حسين روبله مدحويني هورا مدحويناش قلمدو مدحويني هورا قلمدو xildhibaanada iyo wasiirada dhammaan baahda saxaafadda iyo inta na dhageysanaysa waxaan ku salaamaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu murashaxiinta maylood intaas markaan ka gudbo runtii
runtii sida mas-uuliyiintii iga horreeyay ay sheegeen halkan waxaa ka dhacay wada hadal maanta laakiin sida laidin sheegay hore usoo socday ay ka qayb qaateen dad kala duwan dad muuqday dadaan muuqan marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadkaas ka soo shaqeeyey wada hadalkan waqtiga soo socday maxay ahayd kuna soo gabagaboobay bayaanka la akhriyey oo aad wada maqlayseen intaas markaan ka gudbo ani waxaan isleeyahay waa tilaab fiican oo hore loo qaaday bani aadamku inuu kala ra'yi duwanaado waa shay dabiici ah laakiin muhiim waxaa ah inuu wada hadli karo xalna ka gaari karo waxa uu isku hayo waxaan isku hayno waa dowladnimo dowladnimadana waxaa asaas u ah wada hadal iyo sharci labadaasaa asaas u ah waxaa laga yaabaa mararka qaar hal qodob in qofba si u fasirto marka haddii aan laga wada hadlin lagama gaari karo xal nidaamka dimuqraadiga ee maanta annaga aan dul taagannahay ama aan ku shaqaynayno waa nidaam curdun ah marka in dadka soomaaliyeed ay dareemaan dowlad ay leeyihiin oo u jilcan oo sharciga ilaalinaysa waa arrin aad iyo aada muhiim u ah marka annaga dhinaceenna haddaan nahay murashaxiintii ama midowda murashaxiinta aan ka hadlayna keliya waxay ahaayeen dadka murashaxiinta ah ha helaano si waafaqsan dastuurka in ay heli karaan maxaan ku idhaahdaa waxa dastuurka u saamaxayo inay political space heli karaan haddii ay wax ka qabaan dowladda waxa ay samaynayso inay banaanbax nabadeed samayn karaan iyo wax alla wix xiriir la leh arrimaha doorashooyinka oo ay ka mid ahaayeen heshiiskii dhuusamareeb waxyaabihii ka soo laabtay sidaas oo kale waxyaabaha laga hadlaya sidaad maqlayseen waxaa ka mid ahay 19 February wixii dhacay dhammaan waxyaabahaas oo dhan waa la isla soo dhaweeyey falilahi alxamdulilah ku mahadsan waxaan rajaynaynaa waxa waaye inay wada hadalladii sii socdaan laga miro dhaliyo dadka soomaaliyeedna ay arkaan doorasho xura oo xalaal ah oo lagu wada qanacsan yahay natiijadeeda la aqbalsan yahay hore u sii socon karta sharafna u ahaa karta dadka soomaaliyeed meelay joogaan waxaan aaminsannahay ilaalinta sharcigu waa wax muhiima waxa dastuurka loo qoray oo dowladnimada la isugu yimid oo halkaas loo wada fadhiyana waa taas ayaana rabnaa anaga dhinaceena inaan ka ilaalino meesha nooga aadan uga aadno ilaahay idankiisa dabcan mararka qaar waxaa laga yaabaa qofba inuu meel ka istaago sida aan sheegnay laakiin waxa lagu xalli karo waxaa ka mid ah in laysu yimaado oo la wada hadlo oo laga heshiiyo waxa maanta halkan ka dhacayna waa heshiiskaas kaasaana rabnaa inuu hore u sii socdo ilaalinta dastuurka iyo xuquuqda iyo xorriyaadka waa waxyaabaha dowladnimadu ku istaaga marka qofku inuu mar walba dul istaago waa lagama maarmaan sababtuna waxa waaye waxa fawdada iyo kala dambeyn la-aanta iyo in dhibaata dhacda keenayo waxaan aaminsannahay inay yihiin sharciga oo la hareer maro marka dhammaanteen aan wada ilaalino sharciga aan wada ilaalino heshiisyada dadka soomaaliyeedna sidaas ayay nabad iyo horumar u gaari karaan waa run dalka waxaa ka jira corona waa run waxaa ka jira amni darro laakiin ayaguna excuse uma naqon karaan xorriyaadka in la qaado excuse uma naqon karaan in dadka la caburiyo marka waxaan rabnaa labada dhinac in laga istaago qof walba meesha ku habboon uu ka istaago qofka maanta jooga berri ma joogo qofka berri jooga berri dama ma joogo dowladnimadu sidaan ognahay waa wareegto marka annaga dhan waxay nagu anfacaysaa sharciga inaan ilaalino maxaa yeelay qofka maanta jooga xurmada u baahan yahay qofka aan jooginna waxa u baahan yahay xuquuqdiisa inuu helo marka aad iyo aad u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad buu mahadsan yahay madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed runtii maalintan weyn oo taariikhiga ah iyo munaasabaddan qiimaha badan waxaa hormuud ka ahaa oo hogaaminayey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble soo dhow mudan ra-iisul wasaare بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مدحوينياشي هراء الدلكة مدحوينياشي قلمدوك هيرشبه مدحوينيه هراء قلمدوك
musharaxiinta, xildhibaanada, wasiirada, senatarada iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. xaqiiqdii meesha aan taaganahay qofkii istaagayaa garan kara cawada farxadda ii leedahay in dad walaalahee ah aan maanta halkan kusoo gabagabaysano heshiis is-afagarad ah oo aan soo gudbinay statementgiisa. waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo runtii igu garab istaagay iina soo jeediyey hawshaan baaxadda leh oo ee culus inaan guto sida ugu wanaagsan. waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo farsamo yaqaanadii sancadaydii hawshaan soo fududeeyey oo qayb weyn ka soo qaatay labadii isbuuc ee ugu dambeysay, isbuucii barkii ugu dambeysay, oo ay isugu jiraan xildhibaano iyo senatooro. shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay waa idiin maqannahay, nagu seexda, waa noo muhiim amniga dalka, waa noo muhiim xorriyatul qowlka, waa noo muhiim inaan dhammaanteen ku noolaano nolol wanaagsan oo mustaqbal fiican leh. mudaharaad nabadeed waa waajib dastuuri ah oo qof kasta oo Soomaali ah uu xaq u leeyahay. waxaa iyadana waajib ah in cid markaa mas'uulka ka ah lagala shaqeeyo sidii ay ugu dhici lahayd si amni ah oo wanaagsan, dhibna uu naga soo wada gaarin. insha allah sida statementiga ama warmurtiyeedka ku qorneyd waa isku afgaran wixii dhammaan ku qornaa. insha allah ilaahay subxaanahu waxaan ka baryayaa inuu si wanaagsan inoogu dhammeeyo, inta dhimanna insha allah aan dhexda u xirno. shacabka soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in ay nagu garab istaagaan sidii aan doorashadan u dhammayn lahayn, nooguna dhammaan lahayd si xor iyo xalaal ah. waan ogahay habeenadan waad murugaysneedeen. insha allah ilaahayna uu naga saaray caawa murugadii. waxaan rajaynaynaa inaan farxad kusii dhammaysano inta nooga hartay. doorasho waa waajib, wayna naga go-an tahay dhammaanteen. insha allah way noo qabsoomaysaa. inta dhimanna waxaan rajaynayaa walaalahay musharaxiinta, walaalahay dowlad goboleedyada inta naga maqan dhammaan inaan gacmaha isqabsanno oo aan fududayno caqabadaha jirana aan ka gudubno si ay noogu qabsoonto doorashadaas, anigana aada gacan igu siisaan. caawa waxaan rabaa halkan inaan uga faa'iidaysto. dalka xaalad ayuu ku jiraa oo ah xaalad caafimaad ee coronaviruska. yaantan waan wada mashquulsanayn oo siyaasaddan ku mashquulsanayn, laakiin dadkii dhinacayay ka baaba'ayeen. waxaan rabaa inaan caawa dib ugu soo jeesanno oo aan gacmaha isqabsanno oo aan u gargaarno qof kasta oo naga xanuunsanayo, cudurkaanna aan raacno waajibaadkii naloo saaray oo ah inaan kala fogaano, afka xiranno, gacmaha iska dhaqanno, lana taxadiro marka aan u soo wada jeesanno. waxaa kaloo jirto oo aan rabaa inaan idiin sheego, xilliye adag ayaan ku jirnaa oo hadda koronaha ugu horeeyo. waxaa ku xiga xilligii jiilaalka oo ay bilaaban doonto biyo la-aanti. waad garan kartaan dad Soomaaliyeed oo masaakiina oo tuulooyin weyn ku nool oo biyo la-aan ku dhici doono maadaama ay jiilaalkii hadda uu marayo qaybtiisii dhexe. waxaan rabaa inaan usoo wada jeesanno oo gacmaha isqabsanno sidii aan uga gudbi lahayn xilliga jiilaalka ah. caqabadda saddexaad oo ku xigta iyadana waxaa waaye xilligii daadadka ayaa ku xigo oo iyadana u baahan inaan hadda iska kaashanno, dhaqaalo usii dhiganno, fatahadahaas aan ka hortagno hadduu ilaahay subxaanahu watacaala noo idmo. waa mahadsantihiin. idinkana waxaa idin leeyahay habeen wanaagsan, soo dhowaada. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad iyo aad ay u mahadsantihiin. marka waa intaas inoogu dhamaatay. wasaaraha noo soo gabagabay. waa mahadsantihiin. corona virus
waa hagaag daawadayaal haddeertaan waxaa sawir wadajira gelaya golaha midowda musharaxiinta Soomaaliya iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka labada aqal iyo sidoo kale madaxweynayaasha maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug iyo madaxweynihii hore ee Galmudug iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda shirkina halkan ayuu ku soo gabagaboobay markii ay sawirkaasi galaan golaha midowda musharaxiinta halkaad naga daawanaysaan waa Universal TV. waa hagaag daawadayaal sida hadda aad aragtaan weli waxaa socda diyaarinta sawirka wadajirka ay gelayaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxda maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. waa hagaag hadda waxaa sawirka galaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda laba madaxweyne hore ee Soomaaliya iyo sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug gudoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Ashkur Warsame iyo xildhibaan Mustafa Dhuxulow weli mas'uuliyiin kale ayaa dhiman oo raba inay qayb ka noqdaan sawirka wadajirka ee taariikhiga ee caawa qayb ka ahaa heshiiskan ay galeen madaxdii joogtay inay ku